بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. إن شاء الله فيديو كان كوبان waxaan rabaa in idin kula soo wadaago qayb yar oo ka soo jaray lecture-rada qaabka online-ka inuu socdo ee class-keena workshop drawing. إن شاء الله hadii aad jeceshay inaad nagu soo biirto videogan aad daawanayso hadeertaan qaybtiisa hoose description-ka hadii aad furto waxa yaala email marka sida caadadaad email-ka ayaad nagu soo qoraysaa magacaaga saddexan iyo number-kaaga si aan waa maxay kula soo wadaagno information intaas ka sii badan aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada. إن شاء الله ما أنت توحينو دوبينا إنه lecture-كي شن إيه طبناد إنه كجاه اللي دونا إن شاء الله solid slabs. طبعا كان 10 كورة وحنا كوسو أرجني beams كنوعية ده كلا دول وحنا سو أرجني simple beam وحنا سو أرجني continuous beam وحنا سو أرجني continuous with cantilever يا simple with cantilever يمكن كاستقاف كبرت لودكتو شروطها اللي إنه جبها هي إنه حقيقي إنه koodka waxa uu ka leeyahay dhamaan waa maxay isla soo aragnaa dabcan koodadkiina waad haysataan waxaan kula talinayaa waxa markasta koodka furtaan aad aragtaan waxa ay koodad kala duwan waxa ay leeyihiin ay ka leeyihiin waa maxay qaabka birta waa maxay mid kasta loo dhigayo dabcan maanta waxaan dhigaynaa aynu solid slabs ka dabcan mashruucan hadda in hor yaalla waa mashruuci aynu basics ka aynu ka soo bilownay marka maanta waxaan sameynayaa waxa weey mashruuca kan ayaan sharaxayaa okay qaabka aanu birta u dhigayno okay waa solid slab dabcan saad arkaysaa wax fikro cusub kuma yaalaanay waa maxay dhamaanteed waa boxes saan kula u jeedaa فهو محي simple way لكن مشروع نوعنا كلته إن هذا هو المستقبل الله كلانته maybe هو محي إني أدو أتكات لأنه قلت واحد أركي سوا محي مشروع صانع كلته حد أركي سوا مشروع more critical كدوان ومحي مشاريع حد أركي سوا محي solid slab ومحي flat slab هالمرسلة شقيني ومحي هالثقافة صراحة قرأت حد أركي سوا محي solid slab لفتي سوا محي حد أركي مثلا بلات كان أما محي slab كان وكلته هذا قاب كان هاشك صراحة قرأت ما هاشك ومحي 45 degree وعدينا وحويسان هورن وصو شيغني إنه محل سلاب كان isku level aysan ahayn okay marka hadar ka level kala duwan slab saan oo kale toole okay hadar ka slab saan oo kale ta curve saan oo kale ta alefa hadar ka more critical mashruuc waa maxay waxa laga yaabaa inuu ku soo maro waxa weey xogaa afkaar badan iyo challenges badan leh marka kana waa maxay mar labaad baan sharaxay okay waxaan markaan sharaxay markaan flat slab aynu aragno hodoti flat slab ee waa maxay solid slab kalmar baan isla shaqaysiinayna hal mar baynu waa maxay detailing ama birta qaabka loo dhigay hal mar wada sharaxay doon okay marka yani inaanu hal mashruuc saan oo kale simple intaan sharaxaan ku dhaawaa maxay solid slab saad ku faahantay waxa ka fiican waa maxay inaad u dhoti markasta challenges kasta oo dhoti ku qabsada shaqadaada inaad waa maxay arki karto aad challenge kasta waa maxay aad u xallin karto laano engineer ku waa maxay markasta waa problem solver صح markasta problem ku yimaado waxa laga baahan solution kiisa aad keento aad okay marka طبعا هدوتين ان شاء الله وحين دمات كعشر كان وامحي كسو بندقي دونا ان مشروع سانو كليتا طبعا مشروعنا مشروع حوغا كسكيل وين مشاريع هذا انو قبانينا نكون شرحايا اوكي مشروعنا كليتا واحد يسو قدبينيسا طبعا فلات سلاب وي waxay soo gudbinaysaa waa maxay detailing soo dhameystiran soo waxa garatay ma saan oo kale midna waxa laga yaabaa in mashruuc saan oo kale idin kana idin diibo sidoo kale to waxa arkaysaa more waa maxay waxa arkaysaa package saan oo kale waa maxay angala badan inuu waa maxay mashruucan noocan oo kale leeyahay fa wuxuu u baahan yahay waa maxay fikirkeeyo ka duwan markasta waa maxay inaan ku xalino marka waa maxay slab saan oo kale waa maxay nooci hore u taqaanay waa maxay uniform shape-ka ka duwan soo waxa garatay ma inaad markasta iyadana waa maxay taas noocan oo kale waa maxay idin diibayaan rajaynaya insha Allah dhamaadka waa maxay 10 kan gudihiisa okay marka waxaan dhahay waa maxay مشروعنا شرحيان sidoo kale tan mashruucana waan sharaxay asagana soo xagaratay maqaabka birta waa maxay wada shaqeynayaan slab full solid slab ki flat slab ka iyo waa maxay iyo qaabka birta ay u galayso waa maxay midna hadii aynu slab saan oo kale aynu haysano ka duwan levelada aan kala aynu haysano qaabkan waa maxay asagana waxaa lin doon okay marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa waa maxay inta gacanteenu ay waa maxay fariisanayso sidoo kale tan aynu u fahmayna waa maxay conceptiga solid slabska مشروع basic simple كان مركز تكبلاوينا اوكي كدب waa maxay xogaa more critical more hadda waa maxay fikir baan ku soo kordhinayna markaas kadib aynu xalleynayna insha Allah okay waxaan doonayaa marka مثلا soo wax garatay ma inaan mashruuc gudihiisa waa maxay 10 gudihiisa waa maxay ku soo bandhigno مثلا koodadka kala duwan aynu haysano maxay ka qorayaan okay kood kasta taban hada kasta koodkan hadda aan soo furno waa maxay waa koodka ICI soo wax garatay ma American koodka waxaan fiirinaynaa waxaan soo arki doonaa waa maxay wuxuu ku qoray taban hada reemisa waa maxay hada koodka aad furto intii hore aan waa maxay ku soo sharaxnay beamiska wax ziyaada kusoo darayna malaha isla intii oo kale halkan ku arkayna okay wax badan ziyaada kuma jiraan marka detailing waa kala duwan yihiin waa maxay wax kala duwanaansho waa maxay beamiska waa maxay slabska solid slab markaynu ka hadlayno one way into ama two ways farqi weyn ma jiro okay sidoo kale waxaynu arki doonaa aynu ACB code-ka waa maxay wuxuu ka qorayo asagana waa maxay solid slab marka aad haysato saan oo kaleeta birta qaabka loo dhigayo iyadana waa maxay code-kan asagana waa isla eegi doonaa ACB-ga soo waxa garatay ma waxa uu ka qorayo okay marka waxaan doonayaa waxa weeye
waxaan doonayaa aan مثلا sidoo kale inaynu hor isla aragna waa maxay birta sheet saan oo kale aynu haysano waxaan isla arki doonaa insha Allah bir kasta aan jarayo si wax garatay ma inaan u ilaaliyo waxaan doonayaa waa maxay wastigayga okay laana hadda waxaan ka hadlayaa waa maxay big scale baan ka hadlayaa laana waa maxay scale kan hadda waa maxay مثلا area noocan oo kale markaan bir dhigayo si wax garatay ma birtu waa maxay oo shay ugu qaalisan fa waxaan doonayaa waa maxay birta qaab kastaan u jarayo waa maxay inay qaab saxan ay noqoto si waa maxay aan mar kastaan u yareeyo wastage ama waa maxay khasaarada ku iman karta birta okay laana birtu waa maxay hadaan kala dhigno waa lacag okay marka مثلا برسان oo kale tada haysto 12 hadda hal qayb u jarto waa maxay wastiga 0 noqonaya oo kale sax gartay marka jadwal noocan oo kale ta insha Allah jadwalkan kale idin la soo wadaagay insha Allah sax gartay ma casharada waa maxay lecture ka 15aad bidin kugu jiraa marka jadwal noocan oo kale ku soconaysa sax gartay markasta si waa maxay wastigaada u yeerayso okay marka wastiga ugu badan halka xadarkiisa 0.6 inaan haysanaayno okay marka markasta insha Allah qaybtan wastiga si fiican wuxuu kala cadaanaysaa hodhoti marka aynu barnaamijka cut optimization aynu galno sax gartay maaha aynu jadawishina PPS ka aynu diyaarsano aynu la galno barnaamijkaas marka barnaamijkaas waa maxay dhamaan wastiga waa maxay minimum inuu sameeyay si waa maxay aynu bir badan aynu khasaarin okay marka waxaan doonayaa hadirtaan inaan fiiriyo marka ugu horeyso qaabka waa maxay qofka birta ii dhigaya uu u fakarayo okay qaabka birta qofka ii dhigaya baan ku yiri uu u fakarayo marka waxaan sameystaa hadirtaan waa maxay sketch saan oo kale ta waa maxay dabcan square waa maxay equal spanish waa maxay saan oo kale u diyaarsaday aan halkaan aan saa u soo dhigto waxaan doonayaa marka fikir inaan waa maxay wax yar aan halkaan ku sharxo aan muhiimadda aan ka leeyahay halkaan waxa weeye ko inaan arko horta shaqada marka aynu fulinayno ama site-ka aynu joogno qaab noocan u fakaraynaa مثلا halkaan waxaan sameystaa saad arkayso waa maxay span-kayga wax leeyahay beam-kayga oo kale cover baa labada dhinac aan ka soo gudbay coverkan soo qaato waa maxay 2 cm iyo bar ayaan soo qaatay marka مثلا qofka ugu horeeya muxuu sameeyaa marka qofka marta ii jaray oo kale muxuu ku fikiray xuleey مثلا marka ugu horeysa birta aan haysto scale-keeda ama waa maxay distance-keeda ama length-keeda intee buu leeyahay 12 mitir way soo xagaratay marka 12 mitir bir ayuu soo tuuranaya okay باللبية 1 متر أيو سأطورنيا وحير كده واحد أركز سبرتة مش يكون استخدمه محي سبانكي كله صح قالت ما دين كان كلتي إيه اللي ميدل كيسي ماشي يوم محي سنتر كي يوم محي ميدل كا أي برتين يكون استخدمه مركب واحد الدنيا برتة هذا هالكان تعالى سيف مكوتها هالك كان برتة هالك متين كوجوجي صح قالت ما بركلا تقول كذا المكسي وضن كرعان برتة هالك مكوس تاي كرتين أنا فهم مركب استوى محي وحين ندب وقول نقولنا هو محي استراكشر أهان ومحي بلا إنسان وكلتها مركب هو محكي هاللينا إنه قابل نوعي وشقية أوكي مركب مثلا هدي إنه بلان كانوا كلها أنواع محي كوسا سنوا محي section سانو كلها section سانو كلها هذا كوسا مثلا section كانوا بإيدي أرسنيه هو هدي مثلا section كانوا كلها عن سوقاته الموف له هو محي section كي بلان كي كانوا كلها هو محي مثلا هالكاسو كلها عن كجرتان أوكي بلان كي section منقاطع عن صح كلها ما section كي مركان غايب تسرع مثلا عن صوفرته قالين كي قاعدين هالكان كل صوفرته وحد أركي سوا حويه وحير كدي قلنكيغي اوكي ساس كل دياري وي اوكي marka plan kan oo kale waxaan doonayaa section ahaan marka goortan saas kala soo furto qaab nooxay uu noqonayaa marka مثلا hadii marka qaab structure ahaan aan u xalino waxaad arkaysaa waa maxay slabkeeni مثلا hadii aynu qaab line saan oo kale taan u diyaarsano okay waxaad arkaysaa halkan waxaan ku haystaa waa maxay beam baan halkan ku haystaa marka halkan support bay noqonaysaa sax halkan beam kale taan ku haystaa halkan support kale taan ku haystaa halkan waa maxay beam iyo beam baan ku haystaa marka afar support ayaan saas oo kale taan slabkeegi uu saas oo kale u haystaa okay marka dan beam kan saan oo kale taan aan la soo baxo waa maxay straining actionskiisa okay momentiga مثلا هذا لا صوب waxaad arkaysaa momentiga qaab shakli noocan oo kale taa inuu qaadanaya sax طبعا waxa way qaab kruuki ah ayaan waa maxaan u sawirayaan okay marka maybe waa maxay inuu khadka ama qalinka uusan saxsanaan marka qaab noocan oo kale taa waa maxay momentiga inuu saan oo kale taa noqonaya sax waxaad arkaysaa waa maxay halkan qaybtan sare waxa ka jirta momenti baa ka jira soo xagaratay ma qaybtan hoosena waa maxay momenti ayaa ka jira okay marka anagu hore waxaan u soo aragnay casharadii hore waa maxay meel kasto oo waa maxay tension zone ah soo xagaratay ma in aan ka ilaalinaya waa maxay inay birta ku istaagto soo xagaratay inay birta ay ku istaagto okay marka birtaan oo kale مثلا labadan support middle span ka halkaan oo kale taan ay soo arkaysaa waa maxay inay tension zone ay tahay marka halkaan oo kale inay mamnuuc ka tahay waa maxay ama moment inuu halka ka jiro marka inay mamnuuc ka tahay waa maxay inaan bir saan oo kale taan waa maxay halkaas ku istaajiyo okay marka waxaad arkaysaa waa maxay inaan ku khasbanahay waa maxay in aan birta aan ku istaajiyo waa maxay support hoostiisa okay marka مثلا hadaan halkaan oo kale saan oo kale isaga soo leelido aan مثلا marka aan ku noqdo waa maxay structure kayga nooca saan oo kale taan hadda uma baahna waa maxay thank you ayaan leeyahay waxa weeye waxa loo yaqaano كان قلنا كي ما حضرتان section نوعان وكله تاو ما بحنيان اوكي سوري section كان حضرتان وما بحنيان marka waxay noo cadaatay waa maxay in hadirtaan birtaan ay halkan ku istaagi karaan marka خلاص qofku waa fakaraya dabcan sa engineer baa tahay marka laga yaabaa inaad tiraahdo خلاص dhanka kale to in مثلا aynu ka soo qaadano birta dhanka kale to waa maxay halkan oo kale intaan soo istaago waa maxay 12 mitir dhanka kale aan ka tuurto hadba aan arka waa maxay bal birtaan meesha ay ku istaagayso 12 mitir okay dhanka kale tan marka birta aad tuurto waxaad aragtay waa maxay sidoo kale in birta ay ku istaagtay isbaankii kale soo xagaratay ma meeshii waa maxay centerka waahid marka dhankan kale waxaad ogeyd waa maxay marka structure aan waxa la siinay halkan waa maxay
tension zone ay tahay ama moment halkan ka jira marka aysan ahayn waa maxay birta halka ku istaagtay waxa laga yaabaa marka inaad tiraahdo khalaas waxaan sameeynayaa waa maxay birtaan oo kale move ayaan leeyahay aan soo xagaratay ma move ayaan leeyahay waxaan dhihi karaa waa maxay span kan oo kale ay halkaas kala soo dhigayaan okay marka birtaan oo kale waxaad arkaysaa waa maxay inay span kan oo kale dhan ay cover garaysay soo xagaratay ma labadii dhinac waa maxay labadii span oo kale tan waa maxay in qayb yar saas kala gashay marka waa maxay waa fikir qof waa fikir sax birta u qaatana waa maxay 12 mitir laano birta wixii ma jareeyaan soo xagaratay ma qof saas oo kale waa laga yaabaa inuu fikiro okay ومركا خلاص ولا waa maxay خلاص birta kale tan waa maxay مثلا soo xagaratay ma hadii aynu overlap aynu مثلا aynu sameeyno طبعا wali code ka waynu sharxi doonaa inuu isla furi doonaa koodka mid kasta waa maxay overlaps wax kasta uu ka leeyahay okay marka inuu dhaw waa maxay خلاص overlap saan oo kale waxaan sameysanayaa aan overlap saan oo kale waxaan sameysanayaa مثلا 60 cm okay 60 cm ama 60 markaan ku dhufto waa maxay 5 soo xagaratay 65 okay marka 5 aan haysto ama 55 صح 55 marka 55 hadii aan ku dhufto waa maxay مثلا birtan diameter kan isticmaalayo hadii ay tahay waa maxay 10 marka waxay noqonaysaa waa maxay 50 cm marka waxay noqonaysaa halkan overlap saan oo kale 0.5 okay marka overlap saan oo kale uu sameysto okay overlap saan oo kale uu sameystay birti koobaad wixii halkaan oo kale ay noqonaysaa soo xagaratay ma overlap aan haystana waa maxay waa 50 cm waa maxay labada birood ay waa maxay overlap saan oo kale uu sameeyay dhanka kale tan waa maxay sidoo kale inaan waa maxay saan oo kale aan sameysto saan oo kale inaan waa maxay overlap aan sameysto soo xagaratay ma 50 cm 50 cm okay kadibna waa maxay birteedii aan waa maxay ilaa coverkii aan gaarsiiyaan okay waa maxay qof saan oo kale waa maxay uu fikiraya qaab noocan oo kale okay birti waa maxay saas oo kale tiisiif igu tahay طبعا marka hadartan birta aan hadda aan cover geeyay birtan halkaan saa u dhigtay waa maxay birti waa maxay dhanka positive movementiga ay tahay sax marka negative movement waxaad arkaysaa meel kasto support saan oo kale igu yaalo meel kasto support saan oo kale igu yaalo waxaad arkaysaa waa maxay in negative movement ay ka jirto marka waxaan u baahanahay bir cover garaysa طبعا negative movementiga meesha waa maxay islaab noocan oo kale markaan haysto marka waxaan ku khasbanahay waa maxay inaan dhankaan oo kale tan waa maxay aan bir saan oo kale aan u dhigto okay bir inaan saan oo kale u dhigto طبعا distance-ga waa maxay intaan soconayo markasta waa maxay code-ka ayaa waa maxay in hagayo hudud insha Allah laakiin waa maxay hadartan waxaan doonayaa aan qaab kuruki inaad u fahanto waa maxay meel kasta oo bir aan dhigayo halkaan oo kale waxaad fahantay waa maxay beam kan oo dhan min alif ila iya soo xagaratay ma in u baahan yahay waa maxay sorry in u baahan yahay waa maxay in u baahan yahay waa maxay bir inuu halkaan soo qaato birtaan waa maxay beamkan korkiisa inay birsa u noqoto okay soo kale birtaan waa maxay waxa la beamkan halka inoo yaala asagana waa maxay wuxuu inoo sababayaa waa maxay wax loo yaqaan negative moment waxaan u baahanahay marka aan inaan waa maxay asagana waa maxay korkiisa waa maxay saan oo kale aan bir aan ku cover karayo soo xagaratay ma sidoo kale waxaad arkaysaa waa maxay beam saan oo kale dhankaana waa maxay inuu waa maxay beam saan oo kale asagana waa maxay negative moment waa maxay uu leeyahay halkaana waa maxay asagana inaynu waa maxay kan edge-ga oo geeska inoo yaala waa maxay asagana inaanu bir saan oo kale aan ugu baahanahay aynu inaan waa maxay ku cover karayno soo xagaratay ma negative moment-ga aynu haysana marka dhigto shakli ahaan maxaad fahmaysaa waa maxay dhammaan beamska korkaaga soo xagaratay ma beamska korkooda waa maxay inaad biro saan oo kale aad haysato bir kasta marka distance-geeda waa maxay intaan waa maxay ka galayno طبعا code-ka inoo sheegayo dhutin hagaya haduu ilaahay idmo laakiin hadda waxaan doonayaa concept-ga basic-ga inaad fahanto aad okay waa maxay birta marka aan dhigayo solid slab waa inaad marka ugu horeysa aad ka fikirtaa aad خلاص birta horta marka ugu horeysa ma tahay waa maxay meesha aan ugu talagalay birta ma ka jarayaan soo xagaratay ma dhigayaa waa maxay wax loo yaqaano birteeda ama waa maxay birtan meeshan ku haboon tahay meeshan wax tension zone ma ka jiraa okay wana marka hore aan iska hubiyaan marka shakligayga hodon qaab noocan oo kale uu noqonaya bizabt shakliga qaab noocan oo kale uu noqonaya waxaad arkaysaa waa maxay qaybtan waa maxay birta inaad haysto dhitin overlap inuu waa maxay ka sameeyo waa maxay supportiga hoostiisa dhankan overlap inuu ka sameeyo support hoostiisa dhammaan waxaad arkaysaa waa maxay beams korkoodana waa maxay inaan saan oo kale aad u haysato wax loo yaqaan bira noocan oo kale okay marka dabcan halkan waxaan haysanaa dhit cantilever ka asagana qaab gaar ah waa maxay birta loo dhigaa asagana waynu soo arki doonaa insha Allah asharada soo socda dabcan mashaariicdan haysanaa dhammaan cantilever leeyihiin marka dabcan saan oo kale dhit waa maxay dhankan waa maxay x direction ka aan u dhigaynaa birta sax bir kasta waa maxay qaabka u cover dhankan waa maxay markeen y direction ka u dhigno waxaad arkaysaa waa maxay dhammaan biraha in waa maxay saas oo kale beam kasta korkiisa waa maxay inaan soo u dhiganayno waa maxay wax loo yaqaano birta sidoo kale tan middle span-ki waa maxay sidaan u birta noocaas kale u dhiganayno marka code-ka mesela hadaynu soo furno ACI waxaad arkaysaa waa maxay one slabka one way soo xagaratay ma one way solid slabka hadaynu isla fiirino soo xagaratay ma waxaad arkaysaa waa maxay isla sheetkii hore aan hore u soo aragnay qaybta beamska markaynu ka hadlaynay soo xagaratay ma wax ziyaada inuu isku soo diro waxaad arkaysaa mesela birta uu ku leeyahay waxaad dhigtaa aad beamka korkiisa wuxuu ku leeyahay halkan mesela 0.L hadda dib u xasuusato 0.L waxa ay waa maxay clear span-ka u dhaxeeya waa maxay support marka supportigan hadda haysana waa maxay waa beams ba labadan support beams ba inoo noqonay laakiin markaynu beamska ka hadlaynay supportiyadina waxay noo hayn
columns baynu ahayn marka shaqadii unba isbedeshay soo waxa garatay laakiin isla jadwalka isla sketchka waa maxay wax yar ka soo bedbedelayo halkan ku soo dhigo soo waxa garatay sidoo kale halkan waxaad arkaysaa waa maxay inuu dhankan kale tan uu ku leeyahay waa maxay beamka soo waxa garatay markii laga bilaabo waa maxay supportiga bilowgiisa dhankan kale waxaad u galaysaa waa maxay 0.3 L marka waxaad dareemaysaa waa maxay hadii aan isla keenisaan kale tan u noqono birtii aynu halkan dhiganay support korkiisa waa maxay in dhankan ka soconaya distance waa maxay isbaankan iyo isbaankan labada isbaan aynu fiirinay labada isbaan midkooda weyn soo waxa garatay ma inaynu ku dhufanayna 0.3 kadibna distance-gaas aynu qaadanayna okay mesela marka hadaynu haysan halkan 5 mitir hadaynu ku dhufanno waa maxay mesela 0.3 hadaynu ku dhufano مثلا 5 soo waxa garatay ma mitir waxaad arkaysaa waa maxay dhankan in waa maxay birta dheerkeedu ay ka noqonaysaa waa maxay 1 mitir markaynu ka cabirno waa maxay beamka bilowgiisa dhankan kale tan beamka bilowgiisa markaynu ka cabirno waa maxay 1 mitir iyo bar ay dhanka kale u galayso okay marka hodhoti qaab noocaas oo kale taa waxa koodka inuu hagayo okay marka sidoo kale taa dib soo ugu noqono waxa uu ku leeyahay waa maxay مثلا halkan coverka halkan isticmaalaya waa maxay asagoo 3 طبعا inji wax ku xisaabinaya soo waxa garatay ma oo clear ah waa maxay uu noqonayaa uu leeyahay coverkaagu marka hadaa 2.54 hadaad ku dhufatay inji aad u madasho waa maxay centimeter waxaad arkaysaa waa maxay ugu yaraan 2 centimeter inuu waa maxay halkaas ka hadlay okay birta dhankan kale waa maxay supporti korkiisa koraysa soo waxa garatay maan hadda ka hadlaynay soo waxa garatay si negative momentiga waa maxay halka ka jiray waa maxay igu cover karaysa wuxuu leeyahay waa maxay rubac soo waxa garatay maal isbaanka clear isbaanka ah baa waxa distance-gaas uu noqonayaa soo waxa garatay bilowga ilaa waa maxay markii laga cabiro waa maxay beamka bilowgiisa okay marka dabcan L waa maxay waa clear isbaanka aad haysato aad okay marka dabcan koodka waxaad arkaysaa intii hore waa maxay wax ziyaado waa maxay meesha halkan inuu yaala ma leh soo waxa garatay hadda mesela kood saan oo kale taajira asagana koodkan kale hadaynu furno مثلا ECB koodka soo waxa garatay waxaad arkaysaa waa maxay inuu ku leeyahay مثلا intii hore kale hadda koodka hore aan ku soo aragno oo kale wuxuu ku leeyahay مثلا birta ugu horeysa ku leeyahay from support to support waa maxay dhaqaaji kadibna waa maxay waxaad ku dartaa wuxuu ku leeyahay waxa loo yaqaan LED ama development length waa maxay dhanka kale kaga dar okay sidoo kale wuxuu ku leeyahay waa maxay bir waxa jirta halkan oo kale soo waxa garatay birta ku xigta birta ku xigta waa maxay wuxuu ku sameeyay waa maxay tawqiifka aan ka hadlaynay waa maxay qaybta beamska markaynu sharaxaynay aynu soo waxa garatay birta marka waa maxay uu jaray soo waxa garatay ku sameeyay waa maxay moment of resistance kadibna waa maxay birti waa maxay saan kale ugu jira marka wuxuu ku leeyahay waa maxay distance-ga dhankan waxay noqonaysaa waa maxay 0.2 LN soo waxa garatay LN hada isweydiiso waa maxay hadaad fiiriso LN1 soo waxa garatay waa clear spanka soo waxa garatay L1 waa maxay markii laga hadlayo waa maxay from center to center markaynu ka hadlayno supportiyada noocan oo kale ta okay marka wuxuu ku leeyahay waa maxay LN1 oo clear spanka soo waxa garatay yani markii aan ka hadalnay LN1 clear spanka waxa ku dhufataa 0.2 ku leeyahay marka distance-ga inta ka tagayso waa intaas soo waxa garatay dhankan waxaad arkaysaa birtan dhankan kale ka jira waa maxay iyadana ka tagay 0.1 LN1 okay marka waxa dhaysaa waa maxay khalas birtan muxuu u jaray waxaad arkaysaa birtan dabcan ma uusan jarin okay dabcan adiga ahaan way kuugu muuqata inay jaran tahay laakiin meel kale waa maxay uu ka buuxsaday okay soo waxa garatay halkan waa maxay intii ii dhimaneed waa maxay automatically muxuu ka buuxiyay waxa ka buuxiyay waa maxay hadaad birtaan oo kale dhankan qaybta sare karaysa soo waxa garatay hadaad fiiriso aad birteen ka hadlayna hadirtaan soo waxa garatay qaybta sare soo waxa garatay halkan muxuu ku yiri waa maxay rubac soo waxa garatay 0.2 LN1 ka gal clear spanka dabcan sidii waa maxay ACA code ku qoray wax farqi uma dhaxeeyo dhankan waa soo kuleeyahay waa maxay 0.24 LN ka kor soo waxa garatay waxaad arkaysaa marka intii space-ki awal wuxuu ka yiri halkan waxa ka soo tagtaa 0.2 hadana waxaad arkaysaa inuu qaybta sare kaga daray birti waa maxay 0.25 waxa dareemaysaa wax birtan khalaas inaysan wax badan aysan ka jarnaynba waa maxay automatically ay birtan buuxsamaysa dhankan kale tan waa maxay intuu ka soo tagay soo waxa garatay birti kale waxa ku cover garaynaysa buu ku leeyahay waa maxay birti kale waa maxay dhanka kale support korkiisa ayaa ku cover garaynaysa iyadana waa maxay distance-ga noqonaysa 0.1 LN okay marka waa maxay kood noocan oo kale tan asagana waa maxay asagana inaad fahanna ayaa isla wanaagsan marka dabcan clear Spanish-kana waa maxay saasaan u aragnaa marka hadda saan isaga soo laabnayno hadaynu saan kale isaga soo laabno dabcan marka ugu horeysa waxaan ku ballanay waa maxay inaynu mashruuca kan aynu ku hormarino marka mesela mashruucina kale hadaynu saa u soo qaadano kadibna aynu koob intaynu soo dhahno aynu soo xagaratay banaanka aynu halkaan kale la nimaano banaanka ayaan la imaanaya okay marka hadda tan mashruuciga waa maxay waa banaysanaya dabcan uma baahni baan dhahayaa waa maxay waxyaalaha kan uma baahni aan oo iska tirtiraya waxyaalaan u baahnayn qoraalada tani waa maxay uma baahni aan dabcan inta kale taan u baahanahay okay marka maxaan sameeynayaa aan isla asiga laftigiisa waa maxay waxaan sameysanayaa koobi ayaan sameysanayaa dhankan kale ayaan waa maxay koobigiisa dhiganaya jambigiisa ayaan saan dhiganayaan okay koobi ayaan jambigiisa saas kale u dhiganayaan marka maxaan sameysanayaa waxa weeye marka ugu horeysa khalaas kan waa maxay kana ku shaqaysanaya weeye okay marka hadda waxaan leeyahay kan uma baahni aan waa maxay qoraalada tan iyo uma baahni aan baa leeyahay marka mesela asaga waxaan sameynayaa ama waxaan sameyn karaa waa maxay axsan waxa ii wanaagsan waa maxay inaan isolate dhaho waa maxay column-ka iyo waa maxay iyo beamka bas ii muuji okay iyo beamka bas ii muuji okay intaan bas ii muuji sax marka intaan waa maxay copy aan ka qaadanayaa
intan baa waa maxay waxaan ka qaadanayaa copy dhinacaan ayaan dhiganayaa saas oo kaleeto saan oo kaleeto okay kanaan u imaanayaan waa iska dhaliidayaa kanaan u imaanayaa isagana dib baan ugu soo ceshanayaa meeshiisii okay markaas waa maxay line-kii baan ka qaadayaan okay marka maxaan sameeyaa haddeertaan sorry kii hore waxaa sorry z dheh control z dheh kan halkan saan ii move ii dheh halkan wax yarsaa igu imow marka dib u soo noqo okay marka qoraalada tan iyo waxyaalahan dhan hadda uma baahna waxaan dhan iska dhalin okay خلاص marka maxaan sameeyay waxa weeye asagoo banaan waa maxaan ku sameynay shop drone iyo waa maxay design-kayga tenderkan soo qaatay hal one time soo isla soo qaatay okay si waa maxay ee shaqadeedu ay hodoti igu fududaato qaabkan u sameynay marka dib ma lahan waxaad arkaysaa marka slabkan hadaan saan kale u fiirinayn slabkan hadaan soo u fiirin waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay waa maxay qaybta sare span-kan hore waa maxay thickness-kiisa aad haysato waa 15 cm soo xagaratay ma afarta dhinac waa maxay shuruudaha ugu horeeya waa maxay soo slabka waa maxay in afarta dhinac waa maxay aslan ba ay beams ay ka xigaan okay marka afarta dhinac waa maxay shuruudihii waa buuxiyay waa maxay arkaysaa beams inay ay ugu yaalanay waxaad arkaysaa halkan laba khad iyo waa maxay iyo khad saan oo kale taa waa maxay perpendicular ku inay ugu yaalo khad noocan oo kale taa marka soo slab ama naqshadaad ku aragto micnaheedu waa maxay kan labada dhinac oo khad labada khad oo soo xagaratay ama labada line soo xagaratay ma waxay muujinayaan waa maxay direction kan inuu yahay birta ugu horeysa waa maxay dhanka alwaaxa xigsanaysa yani dabcan marka aad alwaaxa aad waa maxay aad samaysato birta ugu horeysa waa maxay farshiga ama qaybta ugu hooseysa waa maxay gogasha ugu horeysa birta la dhigaya meshka ugu horeysa soo xagaratay ma direction-kiisa wuxuu noqonayaa buu kuleeyahay noocaas qaabkaas uu noqonayaa ama y direction buu noqonayaa okay birta kale waa maxay meshka qaybta kale waa maxay x direction kan waxay noqonaysaa birta ku xigta okay saan oo kale yani birtan waa maxay birta ugu horeysa waa maxay khashabka taabanaysa soo xagaratay ma yani markaad baskuudka dhigato khashabki markaad haysato ama waa maxay alwaaxi baskuudka dhiganaysa dabcan sax baskuudka marka dhigato birta ugu horeysa marka dhigayso direction keebay noqonaysa marka direction noqonaysa wuxuu ku leeyahay waa maxay waa direction kan badana waxay la xiriirsan tahay waa maxay waa isbaanka aad haysato dherarkiisa dabcan sax marka badana solid slabka markaynu birta dhigayna markaynu design ku sameeynayna birta ugu horeysa waxaynu dhigaynaa waa maxay short isbaanka aad haysato soo wax garatay maaha slabkaaga aad haysato marka mesela hadii aynu distance-yadan aynu fiirino soo wax garatay maxaad dareemaysaa waa maxay labadan distance mesela hadii aynu saan kale soo qaadano distance inteebad haysataa waa maxay 3 mitir iyo waa maxay مثلا iyo 80 cm saas oo kaleeto haddaan distance-gan kaleeto waa maxay dhanka kaleeto waa maxay x direction kan soo fiirinayn waxaad arkaysaa waa maxay wax yar kadib in waa maxay distance-gan uu ka weyn yahay distance-gan kaleeto marka labada dhinac keeba short direction waxaad arkaysaa waa maxay y direction-ka inay short tahay waa maxay 3 mitir way dhankana 6 mitir inay tahay marka dhanka waa maxay short length-ka ama waa maxay short direction-kaaga waa maxay birta ugu horeysa waa maxay parallel noqonaysa okay marka waa maxay waa tip la xiriira waa maxay design-ka marka sameeynayso almuhim waa maxay hadirtan saa u fahmo okay marka waxaad arkaysaa birta inuu qaab noocaas oo kale kugu dhigto wuxuu leeyahay marka birta ugu horeysa waa maxay 6 5 10 soo wax garatay ma meter kasta / meter soo wax garatay ma yani meter kasta waa maxay 6 birood buu dhiganaya bir kastana waa maxay waa high tensile steel birta kastana diameter-keeda waa maxay 10 waa maxay millimeter okay marka qaab noocaas oo kale waxaad arkaysaa birtaan oo kale waa maxay in saan oo kale ay waa maxay kugu taalaay okay waxaad arkaysaa dhankan waa maxay inay u tahay ay qaybta ugu horeysa waa maxay distance-ga long short direction-keena u tahay marka birta ugu horeysa in waa maxay qaab noocaas u siiyay birtan dharkeedu waa maxay ama Allahu musta'an cadadkeeduna waa maxay inuu yahay 6 birood okay marka ugu horeysa birtaan oo kale tan doonaya markii waa maxay aan ku sameeyo waa maxay shop drawing okay marka inta aan shop drawing-ka aan gelin intaan shop drawing-ka gelin waxaan doonayaa waxa weeye inaan naqshad noocan oo kale taan soo furaan okay طبعا نقشدان aan haysano waxa weeye waa nursery waa building saan kale ta nursery soo garatay ma aad waa maxaad ku sameynaysaa aad insha Allah shop drawing okay marka naqshadaan oo kale ta markay insaan oo kale soo fiirin okay طبعا hadii مثلا ay isbaan saan oo kale taan niman isbaan noocan oo kale ta niman okay maxuu ku leeyahay waxa ku leeyahay waa مثلا bir saan oo kale ta haysataa ku leeyahay soo garatay ma birta tan soo garatay ma halkan wuxuu ku siiyay waa maxay birta طبعا description kan rabnaa inaan isla aragno okay marka waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan template-keena inuu description-kiisa aynu saxanayn marka
description noocan oo kale tadan isla fiirina muxuu ku leeyahay waa maxay mesela birta positionkeedu ku siiyo okay positionkan uu dhato positionka ka muuqanaya table-kaaga PPS ka okay marka position number-ka markuu saan kale ku siiyo wuxuu ku leeyahay waa maxay birta tan position number-keeda waa kana sidoo kale birtan waa maxay waa 6 birood birtan diameter-keedana waa 10 mm space-ka birka iyo birta kale isku xigana waa maxay isu jirana waa maxay 167 mm soo waxa garatay ma tusaalahan birtan waa B1 oo ka wada mesela bottom birta waa maxay qaybta hoose ee bottom-ka okay sidoo kale halkan hoose waxaad arkaysaa inuu bar symbol saan kale uu ku siiyo ku leeyahay waa maxay birtaada waa bir straight ah waa maxay dhankana waa maxay u ah waa maxay dhererkeedu uu yahay 2 mitir iyo 40 cm qaab noocaas oo kale marka waxaan doonaynaa waa maxay description noocan oo kale inaynu diyaarsanayn marka hadii drawing-kiina saa ugu soo noqono dabcan description-kan hadda inoo ma diyaarsana description-kan inoo ma diyaarsana dabcan description-nada hore aan adeegsanaynay dhammaan casharada hore waa maxay 14 lecture hore aan soo daawanay waxay u badnaayeen waxa weeye description waa maxay template diyaarsan marka template-ka waxaan doonaynaa inaanu barnaamijka fahansiino qaabka anagu wuxuu doonaynaa waa maxay noogu soo saaro okay dabcan anaga barnaamijka xukumayna marka maxaynu sameeynaa mesela tusaalahan hadii aynu bar saan oo kale qaab waa maxay random halkaan u dhigto waxaan doonayaa inaan ku saxdo waa maxay bar random saan oo kale 2 points baan leeyahay aan soo xagaratay ma bar halkaan oo kale idhig mesela 2 mitir way dhererkiisa ayaan leeyahay okay barkayga haddaan saan oo kale u soo dhaweeyaan haddaan barkayga saan oo kale u soo dhaweeyay dabcan wuxuu ku leeyahay waa maxay barkaaga intee weeyaan birood mesela haddaan waa 3 birood buu yahay haddaan save saan oo kale iska dhawaam any point saan oo kale u dhigo waxaad arkaysaa waa maxay qaab noocan oo kale in waa maxay ii siinayo wax loo yaqaano description noocan marka description-kan hadda uma baahnay aan waxaan doonayaa description anigu aan u baahanahay aan soo wax garatay ma aan doonayaa system noocaas inaan ku socdo inaan samaysto aan marka qaab noocan oo kale taas ayaan u sameeynayaa waxaan u sameeynayaa waxay markuu ugu horeysa waxaan imaanayaa qaybtan setting-ka barnaamijka kadib waxaan imaanayaa job preferences okay job preferences baan saa usoo furayaan wax yar baan sugayaa intuu dialogue job preferences ii soo furmayo qaab noocan oo kale markuu igu soo furmo waxaan sameeynayaa waxaan imaanayaa qaybtan ay ku qoran tahay styles okay qaybtan ay ku qoran tahay waan iri styles ayaan saan waa maxay qaybta oo hoos timaada waa maxay park okay markan click saa u siiyo halkan waxa igu fariisanaya waa maxay par shape kadib waxaan leeyahay modify okay mar labaad waa maxay dialogue noocan oo kale ii soo furaya asagana waa maxay waxaan ku fariisinayaa par shape sidoo uu yahay soo xagartay kadibna modify ayaan saa u leeyahay okay wuxuu ku siinayaa waxa weeye saan oo kale dialogue saan oo kale okay marka waxaan imaanayaa marka ugu horeysa qaybtan ay ku qoran tahay waa maxay description syntax okay description syntax marka waxaad arkaysaa waa maxay syntax ama waa maxay qaybta aan arkaynay hadda cabarka hor waa maxay soo xagaratay maaha inuu waxa qaab noocan oo kale halkan igu yaalo marka waxaan doonayaa hadda tan qaybtan anigu uma baahno waxaan doonayaa anigu inaan waa maxay aan samaysto waa maxay description-ka anigu aan doonayaa okay marka ugu horeysa maxaan sameeynayaa qaybtan oo iska tirtirayaan okay qaybta ugu horeysa haddaan jadwalkayga dib saan oo kale ugu noqdaan jadwalkayga haddaan mesela dib saan oo kale ugu noqdo waxaad arkaysaa waa maxay ugu horeeya waxa ugu horeeya waa maxay position-ka kadib waxa ku xiga waa maxay birta kadibna spacing-ka kadibna waa maxay birta meesha ay taalo sax qaybtoosana waa maxay waxaan ka dhiganaynaa waa maxay birta dhererkeeda iyo par symbol-keeda okay marka waxaan sameeynaynaa marka ugu horeysa waxaan u baahanahay waan dhahayaa waa maxay position-ka ayaan u baahanahay okay kadib position-ka markaan check mark sa u saarto waxaan dhahayaa hoos iigu soo deji position-kayga okay kadibna waxaan leeyahay aan dabcan position length buu laba waa maxay wuxuu isiiyaa waa maxay marka position-ka kaliya haddaan soo yahay tan waa maxay check mark oo ka qaadayaan marka tan position-ka bas isoo deji baan leeyahay okay kadibna waxaan taabanayaa waa maxay calaamadda minus ka soo xagaratay ma si waa maxay minus waa maxay igu dhaxeeyo kadibna waxaan leeyahay waa maxay waxaan u baahanahay aan birta number-keeda iyo waa maxay symbol-keeda iyo waa maxay diameter-keeda intuu yahay okay lan halkan waxaan ku aragnaa waa maxay jadwalkeena saan ugu noqono soo xagaratay ma muxuu ku leeyahay waa maxay birta number-keedii symbol-keedii waa maxay waa tensor kadibna waa maxay diameter-keeda okay qaab noocaas oo kale maxaana ka horeeya minus ba ka horeeya okay qaab noocaas oo kale u sameysanaynaa inaguna okay saan oo kale marka usoo check garaysan kadib waxaan haynaa dhammaan waxaan ka hadalnaa oo dhan hoos iigu soo deji saas oo kale waxaan ku xijinayaa waa maxay mesela minus saan oo kale okay spacing-kayga ma rabaa inaan sameysto okay marka spacing-kayga hadda waxaan sameysan karaa waa qaabka asaga waa barnaamijka uu sameeyo oo kale mesela asaga wuxuu isticmaalaa waa maxay at okay marka calaamadda at oo kale waan qoran karaa aan okay halkan oo kale taan imaanaya qaybtan hoose kadib waxaan dhahayaa at iyo qor okay at waa diidan yahay dabcan mushkilad ma lahan waxaan dhahayaa minus saan oo kale soo xagaratay keyboardka iyo qor spacing oo kale s baan saan u leeyahay kadibna equal ayaan saa u leeyahay mesela soo xagaratay aniga ayaa mesela aan waa maxay spacing-kayga mesela u cadeynaya okay marka spacing-ka waxaan dhahayaa waa maxay qaybtan ay ku qoran tahay spacing-ka ayaan check mark saaranaya kadibna waxaan dhahayaa spacing-ka ii soo deji waxaad arkaysaa spacing-kayga halka ii soo deji okay kadibna waxaan rabaa aan inaan minus saa u dhaho haddaan jadwalkayga aan dib saa ugu noqdo waxaan doonayaa waxa weeye halka inuu ku leeyahay waa maxay B1 mesela qaybtan waa description anaa raba inaan dhulka ku qoraan aan dhahayo birtan mesela waa bottom birtan waa top birtan waa maxay soo xagaratay ma hadba symbol-kan ula baxo anaa raba dhulka inaan barnaamijka aan ku qoro okay marka waxaan activate karaysanayaa waxa loo yaqaano
user description okay user description ayaan activate garaysanaya kadibna waa maxay qaybta hoose ayaan ugu soo dejinayaan okay user description ka iyo waa maxay position kana waxaan u dhaxaysiinaya waa maxay minus ayaan ugu dhaxaysiinaya si waa maxay hodhowti waa maxay shirkas ay saa ugu faahfaasanaato dabcan birteeda markaan saan kale tan u soo qabsado birteeda markaan saan kale u soo qabsado harkaysa birta qaybta sare waxa ku qori karaa qaybta hoose waxa ku qori karaa okay marka waxaan doonayaa qaybta hoose birtana waxaan doonayaa wax ku qoraan marka qaybta hoose birta qaybta xigeen waxa ku qorayaan qaybtan hoose ayaan saa u imaanaya iyadan okay qaybta sare waa maxay birta waan dhameystan qaybta hoose waxaan doonayaa mesela in length ka birta aan ku cadeeyaan okay marka waxaan leeyahay l equal okay l capital equal kadibna length ka ayaan wax activate garaysanayaan okay waa la soo degayaa length ka iso dejiyaan leeyahay kadibna waa maxay minus ayaan saas kale minus waxa uma baahan space baan leeyahay mesela soo waxa garatay waxaan doonayaa waa maxay leeyahay reinforcement symbol kana waa maxay iyadana ii activate garay oo iso dejiyo okay lana waa maxay jadwalkayga noocan oo kale markaan haysto waa maxay waxa ii yaala reinforcementiga ama waa maxay bar symbolkayga soo waxa garatay iyo dherarka waa maxay inta uu yahay okay intaas waa maxay aan u baahanahay baan leeyahay okay inta markaan waa maxay u dhameystaan maxaan leeyahay add ayaan leeyahay okay intaas waa maxay markaas add ayaan saa u leeyahay waxa ku leeyahay waa maxay style 1 marka ma doonaysaa waa maxay modify ku sameeyo yes ayaan leeyahay ii modify garay style 1 ayuu waa maxay ii modify garay okay qaybtan marka maxaan sameynayaan inta aan ka bixin mar labaad baan modify ku noqonayaan okay modify markaan ku noqdo wax yar baan sugayaan qaybta hadda marka hore waxaanu galnaa waa maxay description syntax hadda waxaanu galeynaa waa maxay description elementiga ayaynu galeynaa okay waxaan doonayaa marka ugu horeysa waxaan doonayaa in iska cancel waa maxay calaamada circle-ka laana hadda waxaad arkaysaa mesela hadii aanu cancel isaga soo dhaano aynu waxaan rabnaa in waxyaalo badan halkan ka tirtirno aynu okay waxaan rabnaa in halkan ka tirtirno mesela calaamadan extension line kan iyo waa maxay number-kan soo xagaratay ma circle-ka yaala labadaas inaan ka dhilidna ayaan doonaynaa aynu marka maxaynu dhahaynaa waa maxay dib baynu ugu noqonaynaa job references ayaynu saa ugu noqon kadib waxaan imaanayaa stylist waxaan dhahayaa modify صح bar shape modify kadib waxaan dhahayaa modify easy leh waxaan imaanayaa waa maxay qaybtan description elementiga ayaan imaanaya waxaan leeyahay marka circle ba hadda waa maxay iigu jirtaa marka waxaan leeyahay circle-ka iiga saar kow soo xagartay sidoo kale tan position-ka waxaan doonayaa wuxuu ku leeyahay waa maxay qaybta sare qaybta hoose miyaan leeyna labada qaybood ba hadda dib u xasuusato waa maxay waxbaynu ku qoranay sax marka waxaan doonayaa inuu dot lane-ka uu iga soo baxo labada dhinacba marka halkan asaga ayaan active dhahayaa waa maxay lane-kayga qaybta sare text ba ka yeelan dhahayaa qaybta hoose text ba ka yeelan okay marka labadan marka aan saa u activate gareeyo maxaan leeyahay add ayaan leeyahay aan kadibna waxaan leeyahay e modify garee okay kadibna waxaan leeyahay halkan okay ayaan leeyahay halkan okay ayaan leeyahay okay طبعا waxaad dareemaysaa waa maxay in hadirtaan ay waa maxay isbedelay soo xagaratay ma circle-kii iyo waa maxay number-kii inuu halka ka baxay okay position number-kii waa maxay 21 halkan ay yaalana waa maxay inuu qoraalkiisa ay ugu darsamay okay waxaad arkaysaa waa maxay halkan inuu leeyahay waa maxay waxaad haystaa 21 bilood bir kasta waa maxay waa 3 bilood baad haysataa aad soo xagaratay ma diameter-keedu inta spacing-ka dabcan aan la rabay inaan sheego ma sheegin aan soo xagaratay ma kadibna wuxuu ku leeyahay waa maxay length-ka aad haysato waa intaas soo xagaratay ma bar markigiina waa maxay qaab noocaas kale inuu igu muujiyo okay si fiican weey hadda ilaa saan u baahanaa weey laakiin hadda wali waxaad dareemaysaa waa maxay halkan oo kale inay ku taalo waa maxay wali extension line inuu halkan ku yaala marka extension line kan hadan doonay in iska saaro waxaan imaanayaa waa maxay مثلا preferences kan saan u imaan preferences markaan saan u imaado maxaan imaanayaa qaybtan reinforcement-ga ayaan soo furayaan okay extension line ba halkan ku yaala okay marka extension line kan waxaan dhahayaa bar description ka extension line uma baahan waxaan dhahayaa marka extension line kan waa maxay distribution ka iyo waa maxay bar description ka labadaba iga qaad baan leeyahay wax loo yaqaan description waa maxay wax loo yaqaan extension line ka okay waxay kadib waxaad arkaysaa waa maxay extension line ki inuu waa maxay si fudud halka uga baxay okay dabcan wali hadda muusan ka bixin marka hadii mesela qoraalkan tan saa isaga dhilo hadirtaan dhawa maxay barkan waxaan doonayaa description ku sameeyaan space hadan saa u dhaho waxaan dhahayaa mesela soo xagartay waxaad arkaysaa halka in khaanado cusub ay waa maxay active ay noqdeen okay waxaan dhahayaa birta number-keeda mesela waa maxay waa 22 bilood weeye position number-ka mesela anaa wasiisanay waxaan dhahayaa position number-kayga waa number 1 okay spacing-ka marka intee buu noqonayaa okay marka wuxuu leeyahay marka position-ka hore baan loo qaatay buu leeyahay mesela soo xagartay marka number aan hore aan loo qaadan oo kale hadan ka dhigo mesela 22 mesela u daa soo xagartay marka maxaan leeyahay waxaan leeyahay mesela spacing-kayga waxaan dhahayaa 6 bilood baan waxaan dhiganayaa meter-kiiba okay marka halkii meter haduu yahay 1 mm hadaan hawaa maxay 1 mm hadii waa maxay halkii meter ii yahay 6 bilood hadii aan dhigto waa maxay spacing-ka birta kale intee u jirtaa waxaan dhahayaa 167 bilood 167 millimeter bay isu jiraan baan dhahayaa okay marka user description waxa rabtaa inaad siiso table-ka rabtaa inaad siiso mise wax kale drawing-ka marka waxaan leeyahay mesela drawing-ka rabaa inaad siiyo waxaan dhahayaa mesela soo xagaratay ma waa bottom way birtaas bottom bay dhacaysaa okay okay marka saan u dhaho waxaad arkaysaa waa maxay wax yar kadib inaan wax description aan saa u wadan okay marka birta mesela hadan halkeedana kale taan imaado center-keeda hadan saa u imaado aan click saa u siiyaan okay kadibna aan space saa u dhaho waxaad arkaysaa waa maxay birteedina saa igu dhameystirantaa dhammaan okay waxaad arkaysaa waa maxay inuu ku leeyahay waa maxay 22 bilood weeye soo xagaratay ma 22 weeye soo xagaratay ma bar waa maxay Allahumma sa'an position number-kaagi
biraha haysatina dabcan 22 birood baan iri soo waxa garatay ma diameterkooduna waa maxay 12 soo waxa garatay ma sidoo kale tan wuxuu ku leeyahay halkan waxa hal space ba halkan ka maqan marka space ama minus baynu galeynayna halka dhib ma lahan wuxuu ku leeyahay waxa spacing ka haystana waa maxay isu jiraan wax 167 isu jiraan ay birtan xagee bay dhacaysaa midlan bottom bay dhacaysaa ku leeyahay birta dhererkeeduna intee weeye soo waxa garatay ma birta dhererkeeduna waa mitir 9 waa maxay soo waxa garatay ma waa mitir iyo waa maxay waa mitir iyo 9 saasoo kale taa iyo bar soo waxa garatay ma iyadoo waa maxay sayn balan qaab noocaas kale taa marka waxyaalaha yar yar hadda iga dhiman aan waa maxay anu saxsaxan oo dhib ma lahan job preferences keena dib ugu noqonayna job preferences kadib waxaan imaanaynaa styles baan imaanaynaa kadib waxaan imaanaynaa waxa weeye modify kadibna modify ayaynu leenahay waxyaalaha yar inaga khalkhaldanaa waxay ahaayeen waa maxay مثلا inaynu waa maxay halkaan aynu u baahannahay wax loo yaqaano مثلا spacing iyo description inaynu minus uga baahannahay halkaas okay spacing kana مثلا soo waxa garatay maaha inaynu مثلا spacing is equal tabteeda u daa soo waxa garatay maaha خلاص position numberka iyo soo waxa garatay automatically waa maxay saas ay okay ugu tahay oo aad hadan saa u dhaho kadibna okay aan dhaho okay halkan aan okay dhaho kadibna aan okay dhaho waxaad arkaysaa waa maxay halkan in minus waa maxay igu soo darsanto okay marka description-kayga hadda automatically baarkay aan u baahnaa saasaan si fudud aan ugu adeegsadaan dib aan ugu noqonayaa marka mashruucaygii okay marka hadaan ku soo noqdo hadeertan waxa weeye naqshadeeda halkan okay naqshadeeda waa tana marka naqshadeeda waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaan hadeertan birtaan ku bilaabo waan boobsiinayaa marka hadeertan insha Allah waxaan ka qaatay waa maxay 3 koobi baan ka qaatay marka ugu horeysa waxaan dhigayaa waa maxay qaabta birta x direction-ka kadibna waa maxay y direction-ka kadibna waa maxay birta koreysa beamska korkooda leeyahay si ay waa maxay halkaas ay iga cover garayso negative moment-igaan haystaan marka maxaan sameynayaa marka ugu horeysa jadwalkayga waa maxay naqshadeedan saa ugu imaanaya waxaad arkaysaa waa maxay qaybtan ku leeyahay fixed waxaad haysataa distance saan oo kale ama fixed span baad haysataa aad slabkan sidoo kale tan waa maxay wuxuu leeyahay main steel-kaagu waa y direction x direction kaaguna waa maxay waa secondary beam kaagi secondary steel kaagi wuxuu leeyahay waa maxay bir kasta waa maxay waa 6 birood diameter-kooduna waa maxay waa 10 mitir kasta intaas dhigaysaa okay marka ugu horeysa waxaan imaanayaa aan slab-kayga imaanayaa waxaan dhahayaa waa maxay reinforcement elevation أنا برتدي رأي متر كذا ما حوات طبعا عشان إلى بعضن اللهم استعان cover كا سو حاجة راتي معها نوعدين واتي 2 points مان ليه هلا بعض points مركان رأي مركو جوهر سو حنك سوق بسنة يان cover كا سو حنك سوق بسنة يوم محي برت جوهر رئيسة برتان جوهر رئيسة سوري waxaan ka soo qabsanayaa waa maxay labada beam soo waxa garatay ma bilowgooda okay beam kan bilowgooda halka birta markaan saa u istaajiyo wuxuu ku leeyahay waa maxay halkan waxa ku leeyahay waxa weeye waxaad ii sheegtaa aad position-kaaga marka position-ka birta ugu horeysan dhigaya weeyaan leeyahay number 1 ayaan siinaya soo waxa garatay ma marka number-kan ii sheeg buu leeyahay marka hada number-ka waxba sheegmayo number 1 baan siinayaan halkan wuxuu leeyahay waa maxay waxa ii sheegtaa spacing-kaaga marka spacing-kaaga midlan 6 birood baa waxa dhigtaa kilometer kasta marka meterka intee buu noqonayaa 10 mm hada 6 u qaybiso waa maxay 167 mm طبعا صح قرأت ماذا سانو كلو فيرنا ومحي كون مركان أقابلنا ومحي لحدين أقابلنا وبقول لحدين إيو كم إيو 7 ملم أوكي على distance كيجو بقول لحدين إيو 7 ملم وسبيس كيجو حلايا مركي user description ما حرتينا table كسيستم مسح حرت drawing كلفتي كسنسينا يا مركي حلايا B1 أيان لا يهي soo waxa garatay maaha user description kayga marka user description kayga B1 waxaan ka wadaa waa maxay birteeda main steel-ka ah soo waxa garatay ma waxaan u baxsanayaa waa maxay waxaan u baxsanayaa B1 okay birteeda waa maxay secondary steel-kan waxaan u baxsanayaa B2 marka hadaan jadwalkeena saa u soo fiirin waxaad arkaysaa waa maxay hadda x direction-keenu fiirinayna marka x direction-ka waa maxay ii yaala bir waxa ii taala secondary beam main beam-ka waa maxay halkan u yaala marka waxay noqonaysaa halkan B2 waan dhahayaa B1 ma sorry B2 waan saa u leeyahay okay marka okay aan saa u leeyahay waxaa leeyahay kadibna description-kayga waxaan dhiganayaa waa maxay birta center-keeda ayaan saa u dhiganayaa okay birta center-keeda ayaan saa u dhigan space ayaan saa u leeyahay marka waxaan leeyahay waa maxay birteeda ugu horeysa waa tana number 1 weeye soo waxa garatay maaha diameter-keedu waa 10 spacing-kan haysto 167 mm bir kasta birta kale u jirtaa ay nooceeduna waa maxay waa B2 waa secondary beam weeye okay waa secondary beam length-ka birteeduna waa maxay wataasa waa 6 mitir iyo 20 cm okay 22 cm okay marka maxaan sameeynaa marka ugu horeysa waxaan doonayaa birtan marka direction-ka aan waa maxay distribution-ka aan ugu sameeynay intee weeye direction-ka waa maxay direction-ka perpendicular-ka ku habay noqonaysa dabcan sax waa maxay waa y direction-ka marka waxaan qaadanayaa waa maxay distance waxaan qaadanayaa waa maxay dimension-kii baan qaadanayaa waxaan leeyahay masaafada tan baa waa maxay aad ku qaybinaysaa masaafada tan ayaa ku qaybinaysaa marka masaafadan ku qaybinaya waa maxay waxaan ka soo qabsanayaa waa maxay beamka bilowgiisa ilaa beamka kale laana baarkan dhiganaya waa maxay baar leeyahay waa maxay beamkaaga marka wuxuu ku istaagayaa waa maxay bilowga beamka ku istaagaya okay
direction kaas waa maxay ayaan waxa ku qaybinaya birtan baan leeyahay marka waxaan doonayaa waxa way hadirtaan numberka halkan number 1 aan ka dhigay inta birood halkan galay inaan xisaabiyaan doonaya okay oo dhererkeedu uu yahay dhunta aan jaranaya waa maxay 6 mitir iyo 20 okay marka waxaan la soo baxay calculator-kayga saan ula soo baxayaan kana waa maxay saan u soo durugsanayaan soo xagaratay marka calculator-kayga markaan saan ula soo baxo waxaan leeyahay waa maxay 6 mitir hadii aan ku dhufto waa maxay distance-gaan haysto waa maxay 3 mitir iyo waa maxay waa maxay 79 سنتيمتر مثلا soo xagaratay maaha hadaan مثلا saa ugu dhufto wuxuu ku leeyahay intee birood baad haysataa waxaad haysataa ku leeyahay 22 birood baad haysataa okay marka maxaan sameeynayaan waxaan ku darayaa hal bir baan ku darayaa zaid واحد baan leeyahay plus 1 soo xagaratay plus 1 kana birta aan ku daray waa maxay waa first part ugu horeeyaan dhiganayo slabka okay marka waa inaan markasta first slab aan ku daraa plus 1 baan leeyahay aan equal markaan dhaho waa maxay waxa ii soo baxay waa maxay 23 birood iyo waa maxay fraction saan oo kale ta marka fraction kana waxaan ku sameeynaa round baan ku sameeynaa total intee baan noqonaysaa ay 24 birood bay noqonaysaa okay marka waxaan leeyahay distance-gaan oo dhan waxa ii galay 24 birood marka description-kaygan saan u imaanaya sida caadiga aan naqaanay aanu modify baan leeyahay aan waxaan leeyahay waa maxay totalka biraha aad haysato hadda waa maxay waa 24 birood baad halka ku haysataa okay close ayaan leeyahay marka waa maxay halka waxaad haystaa birta ugu horeysa soo xagaratay position-keedii waxaad haystaa number-keedii diameter-keedii space-keedii iyo waa maxay nooca ay tahay dhererkeedii masaafada ku qaybinayaan waa kana okay marka ugu horeysa halkan waxaan doonayaa masaafada iyo waa maxay birta wax cadeynaya la rabaa isku xiray okay marka waxaan sameysanayaa donut baan sameysanayaa aan donut kasaan oo kale ta soo xagaratay donut kan sameysanayaa marka hore circle baan caad u sawiranayaa circle yar oo waa maxay aan muuqan circle kaas kala sameysanayaa kadib waxaan leeyahay donut soo xagaratay do ayaan click saa u siinayaan kadib waxaan leeyahay wuxuu ku leeyahay waa maxay waxa ii sheegtaa aad insert diameter-kaaga 00 aan u daysanayaan outside diameter-kana waxaan leeyahay waa maxay waxaad ii qaadataa waa maxay soo xagaratay ma diameter-kan haysto kadibna waxaan ku level gareynayaa center-ka okay click ayaan saa u leeyahay marka halkan waa maxay donut-ka wuxuu cadeynaya waa maxay wuxuu ku leeyahay waa maxay birta tan waxaad ku qaybinaysaa waa maxay masaafo intaas leeg marka birta marka hadaan saa u soo donut-ka u soo fiiriyaa birtan dabcan hadartan waa maxay waxay ku istaagaysaa waa maxay beamkan iyo beamkan kale ta bilowgiisa okay marka waxa muhiim ah waa maxay inaan beamka gudaha u galiyo waxa loo yaqaan development length waan gudaha u galiyaa baan ku yiri waxa loo yaqaan development length marka development length ka badana waxaynu qaadanaynaa waa maxay thickness-ka slabka aynu haysano okay marka slabka aynu haysana mesela halkan 15 wuxuu ahaa soo xagaratay maaha 15 centimeter buu ahaa marka 15 centimeter baan dhankan u galeynaa dhankan 15 centimeter baan u galeynaa ama waxa sameyn kartaa waa maxay inaad intaad beamka aad qabsato waa maxay aad birta ajiido ilaa waa maxay edge-ga soo xagaratay maaha ilaa edge-ga waa maxay soo xagaratay dhinaca kale to waa maxay beamka aad haysataa okay marka hadarta more safe ah tahay lana hadartan 15 waxa laga rabay waa maxay 15 centimeter inaad gudaha u gasho laakiin waxaan u galay waa maxay gudaha 25 centimeter baan u galay marka more safe aan ahay lana 25 ka waxaan ka keenay waa maxay beamkan haysta waa maxay waa B2 okay marka B2 hadaan jadwalkeeda aan eego halkan soo xagaratay ma waxaad ku haysataa waa maxay in aad 25 centimeter u yahay waa maxay wartigeeda okay marka maxaan sameeyay aan 25 baan gudaha u galay soo xagaratay ma marka more safe aan saa ku ahay marka birtaas qaybtaas waa maxay x direction-ka automatically saasay waa maxay ay ugu dhamaatay qaybtan ku xigtaan imaanaya qaybtan ka hooseysa waxaad arkaysaa waa maxay inaad halkan aad waa maxay 3 4 waa maxay slab saan oo kale aad u haysato mid kastana waa maxay isbaankeeda midka kale uu ka duwan yahay waxa inta ku soo raaca waxa weey isbaanka halkan aad haysato oo kale wuxuu leeyahay kan oo kale x direction-kaaga main beam-ka soo xagaratay maaha waxa leeyahay main beam-kaaga waa maxay y direction soo xagaratay ma kuwan waxaad arkaysaa x direction marka dhankan waa maxay birta aan dhigaya dhankan waa maxay waxaan sameeynaa continuity baan ku sameeynaa hal bir baan waa maxay dhankan dhigana leeyahay waa maxay main beam-ka waa maxay hal direction ba haysta dhamaantoodna waa x direction okay laakiin kana ka duwan okay marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa waa maxay kan waxaan ku hormarayaa qaybtan waxaan ku hormarayaa aan ay isku wada mid yihiin waa maxay waxa loo yaqaano birta ay isku direction-ka ay yihiin okay marka birta ugu horeysa xagee baan ku bilaabaya saddexdan waa maxay isbaan way okay marka isbaanka ugu horeeya maxaan sameynayaa birteeda waan soo furanayaa okay birteeda markaan saa u soo furto waxaan leeyahay 2 points okay marka waxaan ka bilaabayaa waxaan dhahayaa waa maxay sida hore aan ku ballanay waa maxay beamka bilowgiisa ilaa iyo waxaan dhahayaa waa maxay beamkan kale to soo xagaratay marka fixed waxaan haystaa aan span saan oo kale taan haystaa marka waa maxay hadda tan awood uma leeyahay waa maxay inaan badbadalo marka position number-ka number 2 baan leeyahay lana number 1 soo sameystaan okay hadda tan waa maxay inta distance-ga la soo bixina dib ma lahan waxaan iska siinayaa waxa weeye number 1 baan waxaan siinayaa waxa loo yaqaano number 1 baan waxaan siinayaa numberkiisa okay spacing-ka intii aan naqaanay soo xagaratay 167 ayaan ka dhiganaynaa spacing-ka halkaana waxaanu dhahaynaa aynu dabcan waxaanu haysanaa aynu waa main beam-kii way marka waa maxay nooceedana waa B1 ayaan soo u leenahay aynu okay ayaan saan u leenahay aynu soo xagaratay ma any point saan oo kale ta ayaa waa maxay center-kiisa ayaan waxaa soo dhiganaynaa aynu halkaan oo kale ayaan saa u dhiganayna space ayaan u leenahay waxa kadib waxaad arkaysaa halkaan in halkaan labadan slab soo xagaratay ma ay waa maxay ka bilaabanayaan beamkan gudihiisa laakiin slabkan dhankan yara soo xamartay waxaad arkaysaa waa maxay inuu xoogaa ka durugsan yahay waa maxay slabkan isku meel aysan ka bilaabaneyn waa maxay kan uu lengthkiisu waa maxay ka dheer yahay kuwan kale okay marka waxaan ku khasbanayaa waa maxay inaan birteedan hadeertan aan soo celiyo
inaan birteedana soo celiyo aan ku joojiyo noqonaysa halkan soo garatay ma kana waa maxay bir aan waa maxay dhigo soo garatay ma asaga gaar u ah ama inaan la socodsiiyo ama la shaqaysiiyo ama in isla shaqaysiiyo labada tan okay labada tan in isla shaqaysiiyo waa dhici kartaa okay ina hal bir waa maxay aan ku tuurto aan okay aan waa maxay labada tan hal bir waa maxay igu shaqaysiiyo marka labada option baan haystaa marka ugu horeysa horta qaybtan aan ka baxno aynu qaybtan marka maxaan sameynayaa waxaan sameynaya hadeertan birtan halkaan aan ku joojiyaan waa maxay dherarkeeda intee ay noqotay 6 mitir iyo waa maxay 50 yani 7 mitir ba automatically ay noqotay okay halkaan iyo dhankaan marka waa maxay waxaan ku darayaa waa maxay halkaan waxaan kaga darayaa aan 0.05 aan ku darayaa si waa maxay automatically numberkaygu number sax ah u noqdo soo xagaratay 7 mitir okay si oo dhoti birta goorta aan jarayo waa maxay ay birta aysan wax badan iga khasaarinay marka hadda waxaan leeyahay marka distance-ga aan ku qaybinayo intee buu noqonayaa marka distance-ga aan ku qaybinayo waxa weeye waa halkaan distribution distance-ga waa beamkan laga bilaabo ilaa dhankaan weey soo xagaratay ma halkaan waa maxay aan ku qaybinayaa waan leeyahay marka halkaan kala dhiganayaa aan okay waxaad haysataa 3 mitir iyo waa maxay iyo 20 cm marka waa maxay calculator-kaaga la soo baxaya waxaan leeyahay 6 waxaad ku dhufataa waa maxay 3.209 okay intee birood baad haysataa buu ku leeyahay waxaad haysataa buu ku leeyahay 19 birood waxaan ku darayaa hal birood oo waa maxay first parkayga ah waxay noqonaysaa 20 birood bay noqonaysaa marka numberkan round baan ku sameeyay waxay noqonaysaa 21 birood ayay noqonaysaa okay marka maxaan leeyahay aan qaybtan description-ka ayaan imaanayaa aan description-ka ayaan kursiisa imaanayaa waxaan dhahayaa right click waxaan dhahayaa modify ayaan leeyahay aan waxaan leeyahay waa maxay 21 birood baad halka ku haysataa aad okay marka numberkayguna waa number 2 okay ayaan leeyahay saas ayaan waxa ugu xisaabinaya marka qaybtan waa maxay 21 birood baan haystaa dhererkooda birtaan haysana waa 7 birood okay marka maxaan sameyn karaa hadeertan dhankan kale tan waa maxay hal bir waa maxay waxaan dhigan karaa aan soo xagaratay marka halkan mesela soo xagaratay waxaad arkaysaa distance-gan oo kaleeto labadan distance aan hal mar xisaabinayno bal waa maxay farq weyn in uu dhaxeeyo inaan waa maxay aan waa maxay aan bedeli karo direction-kiisa marka mesela distance-ga qaybtan oo kale hadaan fiiriyo waxaad haysataa waa maxay 3 mitir iyo 60 cm okay marka 3 mitir iyo 70 iska dhig dhankan kale tan hadaan fiiriyo waxaan haystaa waa maxay intee waan haystaa 4 mitir iyo waxaan haystaa aan soo xagaratay ma konto marka xogaa farq yar muhiim ah u dhaxeeyo marka iska kansalaya dib ma lahan soo xagaratay ma kan ayaan waxaan bedelayaa marka waa maxay direction-kiisa ayaan bedelaya marka labadan ba waa maxay hal bir baan saa u dhiganaya si waa maxay isan birtu wax badan aysan iga khasaarin okay laana labada tan waxay ka bilaabanayaan waa maxay same roof ay ka bilaabanayaan sax hal roof ay ka bilaabanayaan marka labada tan waa maxay waxaan sameynayaa waa maxay labada tan ba waa maxay isku furayaan continuity baan ku sameynayaa hal bir baa waa maxay ku socodsiinaya marka birtan ku socodsiinaya waa maxay biratan baan ku socodsiinaya laana dhankaana waa maxay waxaan dhahayaa waa maxay main beamkayga u yaalo marka intaan oo dhan waa maxay waxaan ka dhigayaa hal slab baan ka dhigayaa beamkan ka ano inuusan jirin baan ka soo qaadaya okay marka waxaan sameynayaa waxa weeye birta ugu horeysa laana marka hadda aan xisaabinayo x direction-kan ku wada xisaabta sax marka waa maxay hal bir baan la soo baxayaa waxaan dhahayaa waxay ka bilaabanaysaa birta tan baan leeyahay aan waxay ka bilaabanaysaa baan dhahayaa halkan qaybtaan ka bilaabanaysaa ilaa ay waxay ku istaagaysaa waa maxay edge-ga qaybtaan ku istaagaysaa okay marka waxaad arkaysaa gauge-ga hadaad fiiriso waxaad arkaysaa inuu qaybtan kor u ka soo jeestay marka halkan hore baynu soo sharaxnay hadii gauge-ga saan kala noqotay waxaan birteedu noqonaysaa bir waa maxay dhanka topka okay marka waa kansalaya waxaan dhahayaa birteeda iska kansalaya mar labaad baan dib u rasimayaan mar labaad baan dib u sawiraya okay si waa maxay pointiga san isaga socodoti markii naqshada la akhrinayo qofka engineerka hadduu saas kale arko wuxuu dhahayaa waa maxay birtan waa bir qaybta sare okay marka birta waa inay markasta gauge-ga hadii bottom ay tahay waa in gauge-ga qaybta sare ugu jeesada okay marka maxaan sameynayaa aan mesela qaybtan birtan waa birta saddexaad baan leeyahay aan hal bir baan hadda iska sii qaadanaya soo xagaratay ma distance-gana waa maxay 167 ayaan leeyahay aan kadibna waxaan leeyahay B2 baan leeyahay aan B2 laana waa maxay haddii shakliga saa u fiiriso waa maxay qaybtan waxaan ka dhiganaynaa waa maxay secondary beamka okay B2 baan saa u leeyahay aan halkaan oo kale aan imaanayaa aan okay click ayaan saa u siinayaa 3 birood okay saas oo kale ayaan leeyahay okay marka maxaan sameynayaa distance-gan u baahanahay sax marka distance-gan qaadanaya muxuu noqonayaa distance-gan uu noqonayaa halkaan laga bilaabo waan leeyahay ilaa iyo halkaan okay ayuu noqonayaa distance-ga halkaan oo kale igu jooji baan leeyahay okay marka maxaan sameynayaa distance-ga intee uu noqday 3 mitir iyo wuxuu noqday iyo 60 marka numberkaas waxaan ku dhufanayaa 6 soo xagaratay si aan ula soo baxo numberka birta aan waa maxay u baahanahay aan marka maxaan la soo baxay calculator-kaygi waa maxay 6 birood waxaan ku dhufanayaa waa maxay 3.657 okay soo xagaratay waxay noqonaysaa waa maxay 21 birood waxaan ku darsanayaa hal bir baan ku darsanayaa aan waa maxay first parkayga waxaan ku sii darayaa kadibna numberkan round baan ku sameeyaa waxaan ka dhigayaa waa maxay 23 birood marka 23 birood ba automatically saa igu noqotay kan ayaan right click dhahayaa modify ayaan leeyahay numberkayga hadda waxaan dhahayaa waa maxay waa 23 birood close ayaan saa u leeyahay okay marka waxaan sameynayaa waa maxay hadeertaan waxaan u baahanayaa waa maxay donut-kaygaan hore u samaystay okay marka donut-kayga hore ayaan copy ka soo qaadanayaa aan okay donut-kayga hore ayaan copy saan oo kale uga soo qaadanayaa aan mid kastana waa maxay waxa aan dhiganayaa waxa weeye mid
كستنا waxaan dhiganayaa waxa weeye saan oo kale meesha iska galayaan waa maxay intersectionka barka iyo waa maxay iska galayaan iyo wax loo yaqaano iyo distribution distance-ga okay si waa maxay wacdaado distance-ga iyo waa maxay dhigta kortir naqshada la akhriyo naqshada la fahmi karo noqoto okay labadaas qaybood saasaan u dhigtay qaybtana ku soo dhexe soo waxa garatay ma qaybtan dhexe waxaad arkaysaa waa maxay qaybtan waa maxay waa sillimkii marka sillimka anu khalaas hadartan waa maxay birti qaab waa maxay gaaro waa maxay 10 gaaran waa maxay lecture gaaran kaga hadlaynaa sida birta loo dhiga asaga sillimka ama loo dhiga waa maxay wax loo yaqaan jaranjarada stairs-kaaga marka labadan slab oo kaleeto ayaan waa madan ka shaqaysanaynaay labadan slab aan haysato waxaad arkaysaa waa maxay in hadartan ay dhankan ay ku taala birti waa maxay loo yaqaanay sorry marka wax yar hadaan dib sa ugu noqdaan birtan dabcan waxay ahayd main steel bay ahayd tan secondary steel marka wax overlap kama dhaxeeyo okay lan halkan waxaan ka fikirayaa waa maxay inaan overlap u sameeyo marka wax overlap halka kuma lihiyaan marka hadda maxaan sameynayaan qaybtan aan imaanayaan qaybtan waa maxay birtan labadan birood waa maxay x direction ka waa secondary beam waa secondary waa maxay steel soo waxa garatay maaha marka maxaan sameynayaan khalaas jadwalkayga saa ugu soo noqonaya waxaan leeyahay waa maxay labadan slab baan ka hadlay slabkan waa maxay waa sillimkaygii marka maxaan sameynayaan birteeda ayaan la soo baxayaan saan oo kaleeto okay coverkayga intaas waxaan leeyahay wuxuu ka bilaabanayaa waa maxay from this point to this point ayaan leeyahay aan okay marka maxaan leeyahay waxaad arkaysaa genjigii waa maxay qaybta sare iga soo jeesta marka markasta waxaan isku dayayaa waa maxay inaan iska soxo dhanka midigta waa inaan ka soo bilaabaa okay dhanka midigta waa inaan ka soo bilaabaa si waa maxay genjigaas uusan iga noqon bottom soo waxa garatay ma genjiga inuu markasta u jeesadaa uu dhanka sare okay dhanka hoos dhanka sare waa inuu jeesadaa si waa maxay ay u cadaato waa maxay in aan shaqada aan ka shaqeynaya ay tahay shaqo saas oo kale marka hadda maxaan sameynayaa distribution baan ku sameynayaa okay birtan maxay noqonaysaa birti afraad bay noqonaysaa dabcan صح birti afraad bay noqonaysaa hadda number 1 baan leeyahay aan 1 waxa weeye 167 ayaan leeyahay aan waxay noqonaysaa waxa weeye distribution kaaga kadibna halkan waa maxay user description kaaga waxaan leeyahay waa B2 bay noqonaysaa okay laana waa maxay secondary beam marka saan oo kale taan soo qaadanaya point any point saan oo kale taan maxay u dhiganayaan hal point saan oo kale taan kale taan saan u dhiganayaan okay space ayaan saan u leeyahay hadarka wax birti afraad way ku leeyahay soo waxa garatay ma dherarkeeduna waa maxay waa intaas wax garatay marka intaan oo kale dherarkaan oo kale maxaan sameyn karaa aan waa 9 mitir way okay marka 60 ka santimeter aan ka tuuri karaa okay marka maxaan sameyn karaa aan halkaan oo kale imo soo wax garatay 60 ka santimeter 0.06 ka tuursi waa maxay numberkaygu cadad saxiix ah u noqdo soo wax garatay ma sorry soo cadad saxiix ah u noqdo birta markaan jarayo ay noqoto bir soo wax garatay ma 0.06 okay 0.06 okay marka waxaad arkaysaa waa maxay dartaan 9 mitir automatically inuu soo noqday birtayda okay marka waxaan sameynayaa hadartan waa maxay distance-ga aan la soo baxayaa sax marka distance-ga ku distribute gareynaya waa maxay from this beam to this beam kam kaleeto sax marka maxaan sameynayaa waxaan la imaanayaa waa maxay home ayaan imaanayaa ama waxaan imaanayaa mesela ayo home baan imaanayaa aan kadib waxaan imaanayaa waa maxay distribution-kaygii soo garatay ma distance-gaygi marka waxaan leeyahay distance-ga aan u baahanahay labadan distance buu noqonayaa okay distance-gayga waa kana okay hada waa bobsiinaya si waa maxay laana shaqada isugaas aad u badan tahay marka 4 mitir iyo waa imisa 4 mitir intaas marka intaas waxaan ku dhufanayaa waa maxay 6 birood baan ku dhufanayaa si waa maxay numberka aan la soo baxo 4.228 waxaan ku dhufanayaa 6 birood soo garatay ma waxaan ku darayaa hal bir baan ku darayaa kadibna numberkaas round baan ku sameeynaya waa maxay 720 birood okay description-kayga imaanaya waxaan dhahayaa aan waa maxay waxaan dhahayaa modify kadibna waxaan leeyahay 720 birood bay noqotay birahaagi soo garatay ma close ayaan saa u leeyahay okay birteeda afraadna saasaan u dhigtay qaybtan sillimka u soo noqonayna qaybtana ku soo hoose okay qaybtan hoose marka hadaynu soo fiirino waxaad arkaysaa waa maxay in hal bir waa maxay hal mid kamid ah soo wax garatay maaha direction ku isbedelay labadan waa maxay uusan direction ku uusan isbedelin marka maxaan sameyn karaa aan waxaan xisaabin karaa waa maxay direction ka waxaan leeyahay labada distance hadii farqi weyn u dhaxeeyo 50 cm ka badan soo wax garatay maaha ma bedelayaan laakiin hadii waa maxay farqigu waa maxay farqi basiid iska noqdo waa maxay friction-ka waa bedelayaan okay marka maxaan sameynayaan wax badan uma dhaxeeyo 1 cm soo wax garatay wax u dhow u dhaxeeya marka maxaan sameynayaan khalaas one direction baan ka dhigayaa hal bir baan waa maxay continuity baan ka dhigayaa slabkan dhan continue baan ka dhigayaa okay marka maxaan sameynaya hal bir baan tuuranayaa okay hal bir baan tuuranaya xagee baan ka bilaabayaa this point baan ka bilaabayaa ilaa waxaan dhahayaa birtaan oo kaleeto halkaan oo kaleeto marka hadii midna aan saan dhaho fiiri wax yar intee baad haysataa distance-ga sorry distance-ga aadaan waxaan rabaa birta inaan samaysto aan 2 points baan leeyahay aan soo waxa garatay ma xagee baan ka bilaabayaa dhahayaa halkaan iga bilaaban dhahayaa ilaa iyo qaybtan kaleeto idig soo waxa garatay ma waxa ku leeyahay birtaadii waa tan birtaadii waxa ku leeyahay waa maxay 12 soo waxa garatay ma 12 mitir bay ka gudub bay ka badan tahay ku jarjaraa buu ku leeyahay okay marka waxaan leeyahay mesela ii jarjar baan leeyahay okay soo waxa garatay ma marka waxaad arkaysaa birta 12 mitirada intaas oo kale uu kaaga soo jiray marka waxaan leeyahay khalaas ani hadda muhiim iimaha okay cancel iga dheh waxaan sameynayaa marka fikir kaleeto ka wanaagsan baan sameynayaa wax yar barnaamijka waa maxay waa istaagay uu khalaas xayr bayn sugeynaa inta waa maxay
عاد كسر مشكلة هذا إن أبو إنه سوى جهدنا نحلينا دوننا وحين فيرنا مركز ديستانسيجا سو حقرت ما كلير سبانك أي نحسنا إنتو ما هي إنتو ياه أوكي مركز ديستانسيجا كلير سبانك أي نحسنا وإنتاس مركز كولاتر كان لصباح يوم حدها يوم حوا إمسا وكوبي طبعا يسوى حقرت ما يلي 1 سنتيمتر مثلا ده يسوى حقرت ما مركز هذا حجيما كسوقات وكلير سبانكيجا أوكي مركز كلير سبانكيجا وح aan shuruud iga hawa maxaynan gudaha waa maxay beamkan u galo wax loo yaqaano LED ama wax loo yaqaano waa maxay development length sax marka development length-kayga aan qaatay wuxuu ahaa 15 cm sax lana waa maxay thickness-ka markasta waxaan qaadanayaa aan slab-ka aan haysto aan okay marka 15 plus 15 labada dhinac waa maxay 15 ka galaya marka waxaan fiirinayaa numberkan waa maxay inuu hadeertaan waa maxay 12 mitir wali ka hooseeya waxaad arkaysaa waa maxay 12 mitir inuu hooseeyo marka halkan waa maxay hal bir baan dhiganaya waxa waa maxay bir jari mayaan okay marka maxaan sameeynayaa خلاص waxaan dhahayaa waa maxay from this point hal bir baan saa u dhiganayaan ay fahanteen ma filaya waa maxay meesha pointiga rabay inaan gaaro 2 points baan leeyahay okay marka aan leeyahay labada birood aan bilaabaya waa maxay marka hore halkan ka bilow ilaa iyo waa maxay dhankan ka bilow okay ilaa dhanka geey soo xagaratay marka aan leeyahay birtan birtay bay noqonaysaa birtan waxay noqonaysaa birtii shanaad bay noqonaysaa waan leeyahay okay marka waxaan dhahayaa aan sidoo kale to mesela hal bir baan leeyahay hadeertaan ma garanayo waa maxay cadadka distance-una waa maxay 167 soo xagaratay description-ka aan haystana waa maxay waxaan dhahayaa qaybtan waxaan dhahaynaa aynu B2 okay lana qaybtan waxaan ku wadaynaa waa maxay inay kaano ay tahay secondary beam okay marka waxaan leeyahay B2 ayaan saa u leeyahay okay marka okay ayaan saa u leeyahay حنمانية any point سانو كلتا okay سانو كلتا center كيان دقانيا كدبن space ayaan saa u leeyahay okay marka maxaan sameeynayaa adeertan gudaha waxaan u galayaa dhankan 15 cm okay 0. soo xagalatay ma 15 bas u galayaa gudaha okay waa maxay LED ah waa maxay LED waa maxay beamka gudihiisa u galaa sax birto dhankan waa maxay waxaan u galayaa gudaha waa maxay 0.15 baan gudaha saa u galayaa okay marka hadda waxaad arkaysaa waa maxay birteedu waa maxay inay tahay wali in 12 mitir ay ka hooseysaa marka birtan hadda safe ay ugu tahay okay waxaan u baahanayaa marka distribution distance-gaan u baahanayaan distribution distance-ga intee buu noqonayaa waxaan dhahayaa waa maxay distribution distance-ga wuxuu noqonayaa from this point ilaa iyo point-gaan oo kale ta soo xagaratay ma halkaan oo kale ta saa igu dhig okay waxay noqonaysaa 3 birood 3 mitir iyo waa maxay iyo 60 okay marka haddii calculator-kan saa u safro waxaan dhahayaa waa maxay 6 waxaad ku dhufataa aad 3.629 okay waa imisa waxaan ku darayaa hal bir baan ku darayaa waa maxay first bar-kayga ah waxay noqonaysaa waa maxay 22 birood kadibna numberkan round baan ku sameeynaa waxay noqonaysaa 23 birood okay marka maxaan sameeynayaa qaybtaan aan imaanaya waxaan dhahayaa modify ayaan saa u leeyahay totalkayga waa maxay waa 23 birood way okay close baan saa u leeyahay qaybtaas birtaasna saasaan u dhigtaan okay marka intaas markaan saa u sameeyay hadda maxaa ii soo haray inta waxa ii soo haray halkan soo xagaratay ma qaybtan ay soo hartay marka qaybtan maxaan sameeynayaa waxaan sameeynayaa aan bir kasta gaarkeeda u dhiganaa lana waxaan arkaynaa waa maxay in halkan aad qayb zigzag saan kale taad u haysato waa maxay slaabka usan waa maxay hal beam intuu ka bilaabo hal beamna uu soo ku dhamaaneen okay marka maxaynu sameynaynaa qaybtanna waa maxay gaarkeeda u dhiganaa qaybtanna gaarkeeda u dhiganaa birta qaybtanna gaarkeeda u dhiganaa ahsan saas aynu ugu wanaagsan okay ama labada tanba isla socodsiin karnaa lana waa maxay same direction been haystaan sax lana labadan waa maxay secondary beamkoodu waa same direction laakiin kan kale waa maxay direction-kii waa maxay isbedelayaa marka maxaan sameynayaa waxaan sameyn karaa waxa weeye in aan labada tan intaan isla shaqaysiiyo ilaa halka beamkaas wax garatay ma intaan hoosana waa maxay biri ziyaadada aan dhigto aan okay ziyaadada aan dhigto beamka birtaanna waa maxaan gaarkeeda u dhigto marka intaas saas labadaasna waa sameyn karaan marka markasta waxaad ku fikirtaa markasta waxa ku fikirtaa markasta aad birtaada inaad jarto aad yareyso wax garatay birtaada waa dhaqaaleynaysaa okay markasta birta ay ka gasho waa maxay inaad waqtiyo badan aad jarjarto ama meelo badan aad ka jarjarto ama overlaps tira badan aad u sameyso aad birtaadu waa maxay khasaaro badan iyo waa maxay waxa ka galayso wax garatay waste badan ba ka galay marka pointigaas waa inaad hoosta ka xariiqataa marka birtan qaybtan waa maxay total waa maxay caadi baan u dhiganaynaa marka hadda waxaan haysanaa main beam baan haysanaa x direction waxaan sameynayaa marka saano kale tan waxa soo furanayaan 2 points baan leeyahay okay marka pointiga kan iyo waxaan leeyahay mesela pointiga kan soo xagaratay ma ay noqonaysaa birtan marka waxaan leeyahay qaybtan mesela hal bir baan dhiganayaa birtan waa maxay birtii lixaad weeyaan falayaan waxaan leeyahay marka description-kaygana oo distance-kayga 167 okay B1 weeye markaan okay waa B1 leeyahay markaan waxaan haystaa waxa weeye wax loo yaqaano waxaan haystaa aan main beam-ki baan haystaa x direction okay marka okay baan saa u leeyahay distance-kayga mesela saano kaleeto muxuu sameeyo saan ugu soo noqo okay waxaan dhahaynaa 6 birood waa 6 halkan waxaan dhahaynaa 1 halkan waxaan dhahaynaa 167 halkan waxaan dhahaynaa B1 okay okay markaan saa u dhaw waxaan sameynayaa waa maxay any point baan imaanaya saana kale u kale ku siinay okay marka maxaan haystaa 4 mitir iyo waxaan haystaa iyo waxaan haystaa aan iyo konton 4 mitir iyo konton ma saa u haystaa okay marka waxaan sameyn karaa birtan marka si aysan igaga khasaarin waxaan sameyn karaa aan 4 mitir pro ka dhigi karaan 4 mitir bar
soo xagaratay ma laakiin waa maxay number badan ma ku darayaan okay mushkilad ma tabteeda si gudaha dartan okay marka maxaan sameeynaa distance-gan u baahanay waa distance-gan u baahanay waa kana distance-gan from this point ilaa iyo waa maxay sorry distance-ga waa maxay beamka bilowgiisa ka bilaabanaya ilaa beamkan kaleeto bilowgiisa dhamaadkiisa halkan kale igu istaagaya waa maxay waa 5 mitir iyo waa maxay iyo jajabkaas okay marka maxaan sameeynaa خلاص calculator كان صار بحية وحنا هي اللي برود وحط كله فتاة ضايمسة 5.377 اوكي صح قالت ما بلس 1 نمبر كان روند كو سميه marka waa imisa 34 bilood okay marka waxaan dhahayaa waa maxay description kayga ayaan imaanaya kadibna waxaan leeyahay waa maxay modify ayaan leeyahay waxaan leeyahay waa maxay total waxay noqonaysaa waa maxay 34 bilood bis oo noqonaysaa close ayaan soo leeyahay okay marka maxaa iga maqan bas aan ka ilaaway qaybahan oo dhan donut-kaygii marka donut-yadeedan soo qaado dhamaantood okay COD okay CO centerka ka soo qabso marka meel kasta waa maxay intersection saan oo kale taaynu sameeysanay donut-kaaga soo dhigo okay intersectionada tan soo dhati markii shada la akhrinayo waa maxay u fududaatay in la akhriyo marka saan oo kale waa maxay donut-kayga saasaan u dhiganayaa meel kasta okay marka inta markan saa u sameeyo aan maxaan sameynayaa inta iigu xiga waxay dhiman qaybtan ay dhiman sax marka qaybtan maxaan sameynayaa hal bir baa marka hore dhiganayaa aan mesela soo xagaratay ma hal bir halka bir aan dhiganayaa waa tan mesela soo xagaratay ma halkaan ka sorry dhan kale waan ka bilaabaa si waa maxay ay birta qaybta sare ay ugu jeesato kanjigeeda marka mesela halkaan ka bilaabaya waan dhahayaa ilaa iyo waa maxay halkaan ay soconaysaa okay marka waxaan dhahayaa waa maxay mesela hal bir baan leeyahay birtan nooceedu waa maxay positionkeedu waa number 7 167 kadibna waxaan dhahayaa waa B2 bay noqonaysaa markaan tan okay laana waa maxay waa secondary beam base ah marka any point saan kale tan imaanayaan halkaan kale to spaces kale tan ayaa leeyahay marka maxaan sameynayaa waa 8 mitir iyo waa maxay 8 marka waa maxay 8 mitir iyo 8 kaas dib aan uga soo noqon kara si waa maxay 8 mitir ay igu noqoto marka 0.08 ayaan dib u soo noqonayaan okay si waa maxay 8 mitir ay automatically ay igu fariisato marka maxaan sameynayaan hadeertaan waxaan sameynaya waa maxay distribution-kii waan fiirinayaan qaybtan ku qaybinaya waa tan aan leeyahay halkaan ka soo bilaabaya aan leeyahay ilaa iyo waa maxay qaybatan bay ku egtahay halkaan ay ku egtahay sax marka halkan soo xagaratay masaan oo kaleeto distance-gu waa maxay 3 mitir iyo intaas weeye marka waxaan dhahayaa calculator-ka aan soo furaya 3.77 3 waxaan ku dhufanayaa 6 bilood baan ku dhufanayaa waxaan ku darayaa hal bir baan ku darayaa aan kadibna round baan ku sameeynaya 24 bilood okay marka maxaan sameeynaya right click kadibna waxaan dhahayaa modify waxaan dhahayaa automatically 24 bilood baa soo haysataa okay 24 bilood baa soo haystaan close ayaan soo leeyahay 24 bilood saas total ay u noqoto okay maxaa ii haray marka birda tan xageey ku istaagaysaa halkan beamka halkan ku istaagaysaa marka distance halkan ay iga maqan dabcan sax marka maxaan sameeynayaa bir kale la soo baxayaa okay 2 points baan leeyahay 2 points baan leeyahay marka waxay ka bilaabanaysaa baan dhahayaa from this point to this point okay this point marka halkan waa inaad niyada ku haysaa waa maxay meesha aan ku qaybinayo okay birta sideedaad weeye okay number 1 baan iska leeyahay dib ma lahan soo xagartan 167 bilood ayaan dhahayaa 7 millimeter qaybtana waa maxay waa B mesela B1 oo kale tusay B2 sorry B2 ayaa maxay saa igu noqonaysaa okay ayaan leeyahay marka soo gacanta aad ka qabato waa maxay waxa dareemaysaa waxa weeye inaad fahantaay aad marka hadda distribution-kii waan rabaa inaan saxo sax marka distribution-kayga xagee uu ka noqonayaa from this point xagee uu ka bilaabanayaa beam-kayga bilowgiisu ka bilaabanaya sax ilaa intaan way distribution-kayga bas halkaan oo kale okay marka waa 0. waa maxay contents waa nus mit waa maxay waa nus soo xagaratay ma nus marka waxay noqonaysaa 2 bilood baa galay automatically sax marka 2 bilood automatically galay yani 0.45 waxaad ku dhufataa 6 يعني waxaad kasri شويه ama 3 bilood hal bir ku dar waa maxay 4 ilaa iyo waa maxay plus 1 yani 5 bilood balkan galay okay marka maxaan dhahayaa kanaan dhahayaa right click waxaan dhahayaa modify ayaan leeyahay waxaan dhahayaa waa maxay 5 bilood baa waa maxay halka iga galay okay click ayaan saa u siinayaan okay 5 bilood saas ay automatically ugu tahay marka maxaan sameynayaa sorry fiir wax yar halkan diameter-ka aan isticmaalay intee waa 12 okay jadwalkayga intee weeye 10 marka halkan diameter-da dhan wayna bedelaa okay mid kasta saan right click ku dhig barka korkiisa modify okay kaliya waxa laga rabaa maxay diameter-ka 10 ka dhigto bas خلاص mid kasta isbedelaya automatically soo xagaratay marka mid kasta saas aynu bedelaynaa aynu dhib ma lahan marka waxaan soo qaadanaya donut-kayga aan soo qaadanaya CO donut-kayga centerkan ka soo qabsanaya waxaan dhahayaa from this point halkan waa maxay intersection-ka waa kana sax intersection-ki waa kana 1 intersection-ki kii kale tana waa kana 2
okay waxa dareemaysaa slab saan oo kale taa wax overlaps inuusan jirin isagoo dhan waa maxay iska koobnaa oo aad u sahlanaa oo soo xagaratay qaybta x direction hadda marka y direction waa sameyn kartaa dabcan sax aad bay u fududahay okay marka waxa inoo horeeya waa maxay qaybtan iyadana waa maxay aynu beamska korkeeda aynu saareen qaabkeen u saareen insha Allah kale waxaan dareemayaa video inuu dhererkiisu aad u dheeraaday saacadii ziyaada hadaan ku sii dhawahay marka maxaan sameynayaa aan qaybtan waa maxay inaan dhameystiro plus inaan waa maxay automatically u galo khalaas yani inaan automatically u galo waa maxay slabka saan oo kale fikirka badan u baahan okay ana kan waa maxay overlaps tira badan buu yeelanayaa waa maxay laba slab isla shaqeynaya way soo xagaratay ma waxa jira waa maxay slab saan oo kale taa waa maxay u ka duwan yahay level kooda islaabka ku xiga soo xagaratay ma faa halkan waxa haysta breakage bad haysta fahin waa maxay islaab noocan oo kale fikir badan iyo waa maxay juhdi badan u baahan okay midka kale taa waa maxay kuwana waa maxay iyagana isla arki doona overview aan ku sameyn doona scale kooda aad u weyn yahay halkan waxa dareemaysaa waa maxay in aad waa maxay dhulta overlaps tira badan aad helayso halkan oo kale overlaps kooda aad u badan okay marka maxaynu sameynaynaa waxaynu sameynaynaa hadirtaan midlan jadwalkii waxaan rabaa inaan marka PPS kala soo baxaan okay marka waxaan sameynayaa main table keyga waan la soo baxaya midlan waxaan dhahayaa selection main table waxaan qaybtan halkan saa u dhigtay bas equal aan saa u dhaho any point waa kana halkan oo kale tan saa u dhiganay hoostiisa okay marka waa kana main table ka okay marka muxuu ku leeyahay birta koobaad waxaad haysataa 24 birood baad haysataa dhererkeedu waa imisa waa intaas okay waa kaasa birta labaad waa tan 12 birood baad haysataa dhererkeedu waa imisa waa intaas 7 mitir birta saddexaad waa maxay waa tan 23 birood baad ka haysataa dhererkeedu waa imisa waa intaas yani waxa dareemaysaa maxay khalaas total waxaad haysataa weight-kaaga okay weight-kaaga waa isku soo dardarsanaysaa dhowto weight-kaaga maxaa dhahaysaa khalaas intaas oo tan oo waxaan u baahanahay bir in waa maxay bir side-ka la iigu keeno si waa maxay aan u shubo waa maxay saqafkaas aan haystaan fa waa maxay shaqadeedu waa maxay waxaan ka ilaaliyaa waa maxay khaladaad badan oo waa maxay ku yimaada ama in aan sameeyo مثلا يعني خلاص انجينير baa tahay fa engineerka waxa loo baahan yahay waa maxay in uu waa maxay xisaabaadkiisa yani sameeyo ka hor intuusan waa maxay uusan shaqada uusan galin sax marka wadada khalad weey inaad waa maxay sumcadaada dilaysaa soo xagartay inaad side intaad soo distaagto tiraado waa maxay bakhaarka intaas oo tan waxaan uga baahanahay مثلا bir ah soo xagartaan birti markay kugu timaado birti markay ka kala goodo soo xagartay ama meel dhexe ay kaaga istaagto inaad hadana ownerka inta telefoonka qabsataa tiraado la waxaan u baahanahay bir kale oo ziyaada اوكي يعني كذا وامحي انت مهندس متي انجينير متي في وامحي خلادات بدن وامحي كاجره marka markasta وامحي waa inaad shaqadaadu ay tahay more وامحي soo xagaratay ma stylish ay tahay وامحي shaqo fudud oo saan kala markii baa u soo saacada shaqadaadina markasta qof kasta ku qanci karo soo xagaratay ma wax kasta aad qabanaysana waa maxay tirada code kasaanu ka leeyahay la soo baxdaa soo xagaratay ma aad tusiso marka intaan 10kan ku soo koobay insha Allah 10ka ku xiga isla insha Allah sagana waa maxsuul islaabiskan dhameystirayna aynu kadibna waxaynu galeynaa flat slab kadibna waxaynu galeynaa aynu stairska kadib waxaynu galeynaa raftiga insha Allah intaas waxaan ku soo khalisaynaa waa maxay course-keena shop drawing marka intaas aan ku soo koobay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh